doorashada ayaad u codaynaysaa gobonnimo waxaa dilay maan lala gucleeyay nin qabiil u guura ma galo guri barwaaqeede geel iyo lo' baan leenahay iyo gaabanow adhiye gadhoorka iyo subagga igu filan oo gubaa da'aye wax shisheeye kaa soo gala gaajo bixin waaye barwaaqsadaay waana waa lagama guuraani dhammaanteen la haystayaal ayaynu nahay xitaa adigaagani daawanayaa xor ma tihid inaad xorooday ayaad si isu haysataa ee sanan fayga ayaad addoon u tahay kaasoo adiga iyo ehelkaaguba aad addoommo u tihiin dhammaanteen addoommadaas ayaynu nahay u garbaduuba sanamkaas fayga ah kolka laga reebo in yar oo inaga mida oo garaadka ka qaangaadhay ha degdegin waan u jeedaa feedh ayaad soo duubatay waad cadhootay waxaad taminiday inaad gebi ahaanba muuqaalka iska xidho haddaanad disleek igu dhufan amase muuqaalka ku dhufan kol horeba balse ha fududanay dhowr oo iga dhir suganaa ku tusaya inaad xor ahayn oo aad tahay la haystee keliya dhagaha ii raarici guuleysahid waxaan ahay ICT expert waxaan barta ku soo gudbiyaa dalbarasho waxbarasho dhanka culumta teknolojiyadda ogaal afkaarsan oo toolmoon iyo soo tabinta sheekooyin dheefsiiya waayo aragnimo nololeed oo aynaan sinaba ku heleen I get up, can't deny it. I get up, I get up. ugu horreynsa inta aynaan u gudagelin mawduuceenna aynu isla garanna sababta aynu uga hadlayno qodobkani yaad u codaynaysaa doorashada iyo weliba dhinacaynu ka istaagi doono siyaasad kama hadli doono mana jecli inaan ka hadlo balse runta ayaynu kusii durki doonaa waxaynu wax iska weydiin doonaa waaqaca aynu noolnahay caqabadaha haysta dhulkeenna inaynu ka hadalno ayaa ka san oo ka suuban misna ka sareeda roon inaynu ku hadallo kuwa dhulalka kale ka jira waayo dal kasta in dhib ugu filan faraquu ku sitaa iyagana gaar ugu taal xalinteedu haddiise aynu ku sifoonno kuwa u dhug yeelan waayo godalooladooda jeerkaasina ka sheekeeya suuriya ciraaq yaman iyo falastiin lurka ka jira waxaynu la mid nahay un sidii nin gurigiisa daad qaatay oo guri dariskiisa ah ugu baaqaya inay daadka iska moosaan ku darso hadda kiisii daad ayaa qaatay bal suuree foolxumada uu ruuxaasi ku sifoobay ee uu ku astaysan yahay aan qodobkan ku lifaaqo maahmaahyo soomaaliyeed oo hore looga yidhi si fahamkugu soo dhowaado maroodigu takarta saaran ma arkay takaluu arkaa amase maroodiga kale takarta saaran ayuu arkaa tiisama daryeelaa tu kale ku daraa sidoo kale heestii waa tii ahayd nintiisaba daryeelaa ilayn walaalkiina tiirsee baltaydii bay cuslaysee maxaanu tarin kolkaa ugu yaraan isla garanay qofku markuu tiisa meel saaro inuu cid kalena wax tari karo ilee riya hadday dub leeyihiin dabadooday ku qarin lahaayeen haahey markaynu teenna meel saarno ayaynu tasuuriya iyo falastiinna wax ka qaban karnaa ujeedkan mahmaahyada u soo qaadanayaana waa intaasuun haddaba maxay tahay dantay naga dhaxaysa aniga iyo adigay daawanaya ee ay tahay inaynu u tashanno jeer kale u wada halganna tiirinteeda intaan magaalooyinka loo soo guurin ee reer miyiga la ahaa cid la danihi ma jirin geesta noolaanshiyaha nin kastaa siduu dan mooda ayuu ku dhaqaaqi jiray oo keliya wuxuu raadin jiray meel cawsiyo biyele si isaga xoolihiisa iyo intuu mas-uulka ka yahayba u intifaacsadaan oo ugu badbaadaan balse kolkii magaalooyinka loo soo guuray dadkii isku dan ayay noqdeen sidii hal qoys oo kale ayay lurka iyo wacnaantuba u
wada saameynayaan colaadda iyo nabaddu u wada saameynayaan hoggaansamida iyo hoggaan xumudu u wada saameynayaan bulsho kastoo magaalo wadaagi waxaa jirta dan ka dhaxaysa oo kulmisa waxaa jira wax dan u wada iyo waxaan dan u ahaynba han sii fududeeyo hoggaanka dalku hadduu inoo hagaago saameyn fiican ayay nagu yeelanaysaa dhammaanteed waxaynu helaynaa cadaalad sinaan iyo horumar taa beddelkeeda haddii hoggaanku inaga xumaado waxaynu kala kulmaynaa cawaaqib xumo dhac boob xorriyad la-aan dib u socod iyo lur aynaan qaadi karin bulsho kasta oo meel ku wada dhaqan jeerkaasna maamul mideeya waa isku dan oo waa isku mid waa isku mid kolkaa waa inay maslaxadooda iyo danahooda ka wada shaqeeyaan si ay badhaadhe iyo nolol la mahadiyo u gaadhaan iminka waxaan rajeynayaa ugu yaraan inaynu isla fahnay danta naga dhaxaysa ee dhaqankan magaalo ugu keenay haddaba haynu soo qaadanna weydiintii muuqaalkeennu daarnaa ee ahayd doorashadayaad u codaynaysaa waan ogay maankaaga uu ku soo dhacay ruuxii kuu qorshaysnaa inaad cumaamado ruuxaad ula jeelnay jeer kale aad doonaysay inaad xilka saarto maankaaga ayuu qub ku soo yidhi ruuxa taageersanayd haddaba maxay tahay afkaarta iyo aragtiyaha aad ugu codaynayso ruuxaasi ee aad ku raacday bal isweydii maxay tahay aragtida idin midaysa ee aad ruuxaasi ku dooranayso maxay tahay aragtida idin midaysa ee aad ruuxaasi ku dooranayso waa xaqiiq oo waan ogahay waxa ugu weyn ee aad ku raacday ruuxani inuu yahay qabiil xigtaysi iyo nin jeclaysi ayaynu wax ku doorannaa waxna ku durnaa waa xaqiiq badideen miisaanka aynu wax saarnaa waa qabiilka albeega aynu ka qiyaas qaadanaana waa qabiilka waa qabiilka haddaba inta fikirkeennu sidan yahay ma ogtahay inaynaan gaadhayn horumar ruux kastaa dooni lahaa inaynaan la tallaabsan karin wadamada aynu majiiranno inta fikirkeennu isbedelayana sida maanta aynu nahay ahaana doono ma ogtahay in nolosha liidata kolka loo fiiriyo noolaha dhigeeda in aynu ku waari doono intaa fikirkeennu sidan yahay waa run marka la darasayo mustaqbalka ummadeed midabku yeelanayo waxaa la eegaa sida maanta fikirkeedu yahay bulshadaasi timaadadu midabka ay yeelanaysaa waa midabka tagtadaadii lahayd iyo weliba joogtadu midabka ay leedahay tagtada iyo joogtada ayaa laga qiyaas qaataa kolka la doonayo in la odoroso ama lasii qoraansado timaadada haddaba dhalinyara marka maanta fikirkeennu yahay fikirkaas u garbaduuban qabiilka ee aan xorta ahayn sidee ayaynu u doonnaa nolol tan ka wanaagsan sidee ayaynu u higsan karnaa wadamada horumaray sidee ayaynu u goobi karnaa nolola sareeda aynu mahadino kolka aynu qalbigana ka doonno dal horumaray dhismay oo la tallaabsaday dalalka dhigiisa ee caalamka haddana cidda aynu dooranayno aynu ku dooranno qabiil ee aynaan ku dooran waxqabad waxaynu ka dhiganay sidii nin xaglaha laabtay haddana doonay inuu xoolo badan helo oo yeesho taasi macquul miyay tahay adaankuu dhiibe waa maya kolkaa dhammaantiin la haystayaal ayaynu nahay aan aragtidooda wax ku dooran halbeega ay wax ku miisaamaan ee dadka qaar ay ku soo dhowaystaan qaar kalena ay ku fogeeyaanna uu yahay qabiil garashadeennii iyo garaadkeenniiba wuxuu u afduuban yahay qabiil oo xor ma nihin waa hubaal sanamkaas beenta ayaynu caabudnaa dhammaanteen intaynu sanamkaas ka xoroobaynana gubli waa weli marunbaad muquunaysaa ood ka xoroodaa gumaystaa awoodda kugu haystaa balse haddii maan ahaan laguu afduubo way adag tahay sidaad uga xorowdaa ugu dambayn daawade ma waxaad tahay dadka qabiilku halbeega ay wax ku miisaamaan u yahay bise waxaad tahay qof garaadkiisa iyo garashadiisu hagto oo hogaamiso waa tahay saaxiibyaal waa saaxiibkiin guulenaaji inta aynu muuqaalka xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu